Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada xalqadeenan maanta oo ka mid ah xalqadaha maanta. Xalqadeenan waxaynu kusoo qaadan doonaa sidaad ciwaankaba ka arkayseen tijaabi awoodda kombiyuutarkaaga iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay oo ah processorka iyo awoodda graphics-kaaga iyo waxaas oo dhan aad u eegi lahayd inagoo ku eegayna barnaamij yar oo aad u fudud oo la yiraahdo experience. Barnaamijkan oo linkigiisa aad kasoo download garan doonto sidii caadada ahayd YouTube-ka description-kiisa ama sidoo kale qoraalka blog-geena ku qoran aad kasoo download garan doonto adoo ku dhufanaya barta download now. Kadib markaad soo download garayso oo qaabkan kugu yimaado sidii caadiga ahayd ayaad ugu install garaynaysaa. Uninstalling uma baahna, open marka aad tiraahdo ayaa uu kusoo saaraya daaqadan yar ee gaaban. Kadib waxa uu kuu sheegayaa component-iga oo ka kooban yahay. Waxa uu ku leeyahay processor-kaaga oo kale conclusions per second. Second-kiiba waxa uu calculate garayaa 5.0. Memory RAM-kaaga oo kale ayuu leeyahay per second waa 5.5. Sidoo kale graphics-kaaga ama shaashada kombiyuutarkaaga performance-kiisa IRO iyo waxaas oo kale waa 4.0. Sidoo kale games-ka markaad ku ciyaarayso awoodda game-ka ay shaashadaada ku saaraysa waa 4.1. sidoo kale primary hard disk-gaaga ayuu ku leeyahay primary-ga ah waa 6.9 awoodiisu. Sidoo kale waxa uu kuu sheegayaa bartan hoose Microsoft Windows 8.1 with Bing 64-bit. waxa uu leeyahay in uu igu jiro aan ku shaqaynayo kombiyuutarkayga Microsoft Windows 8.1 with Bing oo ay 64-bit with Bing macnaha 32-bit iyo waxaan la yiraahdo bitska oo 64-bit. Qaabkaasi waa qaab aad ku ogaan karto habka koowaad ee aad ku ogaan karto performance-ga ama kombiyuutarka components-ka uu ka kooban yahay. Habka labaad ee isaguna ka mid ah hababka aad ku ogaanayso information ku saabsan kombiyuutarkaaga waxa weeye inaad tagto start-daada Windows-kaagu nooca uu doono ha noqdo hadduu yahay 8 iyo hadduu yahay 8.1 hadduu yahay 7 wixii ka sarreeyay XP xataa Vista waxaad ku qoraysaa barta start-daada ayaad ku qoraysaa amarkan dxdiag kadib marka calaamadaasi kuu soo baxdo ayaad ku dhufanaysaa. Kadib waxa kuu soo bixi doona box yar oo ka oran doona yes iyo no. Kadib yes baad siinaysaa si uu kugu soo baxo qaybtan. Halkan waxaad arkaysaa systemka information-ka ku saabsan oo ka mid yahay taariikhda oo ay ka mid tahay computer name-kii magacii operating system-kii oo Windows 8.1 saynu soo aragnay language luqadii oo English ah system manufacturer shirkadii soo samaysay kombiyuutarka Hewlett Packard sidoo kale oo HP ah Hewlett Packard waa HP shirkadda la yiraahdo. System modelka system-kaaga haddii aad u baahantahay information BIOS-ka oo 5.08 ah BIOS-kaaga sidoo kale processor-kii oo Intel R CPU-gii sidoo kale dhammaan iyo xataa memory-gii. Sidoo kale waxaad u gudbi kartaa information-ka display-ga ku saabsan oo halkan iyagana uu kusoo dhigaya dhammaan noocyadeeda full display device-keedii iyo xataa version-kii display-gaaga. Sidoo kale sound codkii iyo input-kii. Waana qaab labaad oo fiican oo ku shaqaynaya dhammaan Windows-yada haddii ay yihiin Vista iyo 7 iyo 8 iyo 8.1 iyo xataa Windows 10-kii ugu dambeeyay qaabkan ayaad ugu isticmaalaysaa. Ujeedada aynu ka leenahay information-kan haddii RAM-ka aad rabto inaad ka beddesho kombiyuutarkaaga oo kale waxay ku xidhan tahay manufacturer-ka sidoo kale waxay shirkadda soo samaysay iyo information-kaas ayaad u baahan tahay kombiyuutarkaaga markastana amarkaas ayaad ka ogaan doontaa labada hab. Waxaan filayaa xalqadeena maanta inay intaa ku eg tahay. Inta ku kulmi doona xalqada dambe biidnillaah waxaan kaa codsanayaa inaad like garayso haddii aad ka faa'iidaysatay xalqadeenan haddii kaloo aad ka faa'iidaysano ku anficina iga sug xalqadaha kale ee maalinkan maanta ah intaynu ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.